بسم الله الرحمن الرحيم. لما مدحدا وقدوميه ugu horeeya waa salaamayn shacabka Soomaaliya dastuurtiida ha dhaco meeshan dadka gobolka Banaadir oo dhammaan bulshada qaybaheedii kala duwan ah maanta waxay u taagan yihiin inay taageeraan codkoodana ay ku biiriyaan golaha shacabka labada gole ee dadka Soomaaliyeed matalana inay garab taagan yihiin ay muujiyaan dhamaystirka dastuurka iyo wax ka beddelkiisa intaba waxaa ku jira danta dalka iyo diinta iyo dadka intaba dalka dastuurkiisu dhamaystirnay horumar weligiis gaari maayo qof laga yeelayaa ma jirto maalin kasta dastuurku inuu noqdo wax iska taagan iyo mashruuc iska taagan iyo waxaa dhammaanay dowladda Soomaaliyeed oo madaxweyne Xasan Sheekh oo hogaamiyo ayaa maanta dastuurkii gacanta ku hayda labada gole ayuu hor yaallaa dadka Soomaaliyeed ayay matalaan dadka maanta halkaa dhooban dadka gobolka Banaadir dadka Soomaaliyeed iyo gobollada Soomaaliyeed oo dhan ka turjumayaan haddii dastuurkii labadii gole hor yaallo dadkii Soomaaliyeed oo dhan maanta halkan ay taagan yihiin madaxweynihii jamhuuriyadda iyo xukuumaddiina ay u taagan tahay dhamaystirkii dastuurka qof hor istaagi karaa ma jiro waxaa la rabaa codkeenna sida aan maanta u taagannahay qorraxdaas iyadoo maalin soona dadka Soomaaliyeed waxaa la rabaa meel kastoo ay joogaan sidaas inay u garab istaagaan dowladdooda iyo labadooda aqal intaba ku kalsoonaada labada gole ee ku shaqada dastuurka aad iyo aad u mahadsantiin muddo dheer ayaa taagneen qorraxda waxaan rabnaa cid allaale iyo ciddii dastuurka ka soo horjeeda hadday tahay siyaasi iyo hadday tahay qof kale dan kale le intaba inaan nidhaahno inka yeeli mayno dastuurku maanta waa furan yahay waa sidii loo furay waana la dhammaystirayaa aad iyo aad baad u mahadsantiin soo dhowaada